إنا لله وإنا إليه راجعون صلاة جمعة maanta degmada Boocame gobolka Sool waxa bulshada ku dhaqan degmada Boocame ay ka tacsiideen geeridii ku timi Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed Yuusuf Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ahaa sheekhuna al-faadil nin ummadeed buu ahaa laguma sheegi karin shakhsi kaliya ummah buu ahaa sida Allah uu yiri inna Ibraahiima kaana ummah إلهي سبحانه وتعالى هو نحرسته أو نحرس جناحسيه قبرك الله واسعيه إلهي دمبكيسي هراي كيسي دمبه هذا فوالله نهاي وحن وقت عسير إن أمضى مسلمين تا دل كافوشحون شيخ كويمد سجود ضد مسلمين تا أردن ولا يجوعان با سيجارة أمضى الصوماليات جارهان منطقة يو قبل كان وكسو جيدي si khaasa waxaan tacsida ugu sii diraynaa xirtii talabadii culumadii ducaadii waxaan ku raahday uu sheekhu uu soo saaray oo uu ku soo tabcay oo adduunka daafiisa iyo dacaladiisa meel kasta ka jooga ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa leenahay isagana uu naxariisto innagana sabir iyo iimaan allah inaga siiyo subhanahu wa ta'ala riyooyinkiisii iyo hambigiisii dacwadeed kuwa xambaara Allah inaga yeelo isagana ilaahay waxaan u weydiinaynaa sadaqa jaariya inuu ay u noqoto hamiga iyo dacwada uu ka tagay oo waxa la inoo sheegay qofka muslimka marka uu dhinto amalkiisu waa go'aya saddex arimood mooyaane saddexda waxa kamid aha aw cilmun yuntafacu bihi علمي يعني قفكي ودتكي وكأنفعي وبراي وفافيي إلهي أكتي وحن مرخاتي وقلنا هاي الشيخ إنه محاكو رهضاي وحي كجأدنا ومداس مسلمين تا أنتي تورتي يتاكتي سهيد إن وجارسيي أو مانتا ميال كسته الدنيا كمد أو أفر تقارضات إن حرتيسي يدتكي وحكاقاتي لجسوا هليو maxaan ku raahday waa amal aad u weyn oo jaliil ah ilaahi waxaan weydiinaynaa amalkaas inuu ku abaal mariyo wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah ilaahi subhanahu wa ta'ala mahadle waan halkan taasi tiiraya ugu direynaa sheekheeni Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed oo talaadii gacan ka xaldan ay ku dishay kismaayo waxaan leenahay ilaahi subhanahu wa ta'ala ونحرص الشيخة رحمتي سواسعة إلهي سبحانه وتعالى هو فيو أبال كيسا حقي وكشدينتي وفافيني يقيرك ودي أبال كيسا جنة الفردوساء الله سبحانه وتعالى هو بهقوة المريو نسجود وحنوا تعصيين هذا مدى المسلمين تاه صومالي ذو أتيت هاي هذه عالم كتهاي وهي وهم يجيسو هم عالم بوها سيجارنا قولنا النسيسي أما قول كسر ينواحي إساء إلهي سبحانه وتعالى تنبي سهر دافو وهم تعصينا طلابتي عدد وحبري مشايخ الصوص هاري أيوه أهل كيسي قنابل السي إن لله ما أعطى وما أخذ وكل شيء عنده مقدار إلهي سبحانه وتعالى وحبحيه سقاله وحقاتنا سقاله وحكى السنة غفق وحقول بني وحقول إلهي تسجل بكله هنزل وعليمان الساعة يجنا وحلين يصبروا صبرا ما لأن هاي سيد علماء هروب ما تيبا ولا لمن أيا وحنكلوا لأن هاي ذكر دليل شيخا إلهي وحنكبرينا إنه كأبال مريو أبال كوضا وفقسن ويقولين ضويل دم وضتا أو خاص كأه وأن هري لو أرجع الله وصود وقدر دلها الله مريو عدي فكر كاس وضتين علماء الله يو أبال كوضا وعقبال إلهي مدها وقفه أو إحنا قرفر حيو وحان تاخد دريا علماء المسلمين تاشيخ صوص صاري وحان لنا هاي أفر قيبوت أيو شيخ ودى ذلك جريبا وقدنا بالوران كراه إنو عد وحبر أيو علام يضد ما ركتي إنو علماء الصوص صاروا كهولين وحبر الشور إنو عد توجيهين أيو وضدك خير كاوشين أيو ممكن كان هي أيو إنو عد إصلاحين أيو وضدك الشيسين أيو إنو عد كلا حكم أيو يعني إنو هولها جود ومدة حلك هذا حنبار سنة لكو عضينا ساق ودياشا إنه وصبان dadka muslimiinta waxaan leenahay culimadii uu soo saaray boorka yani dawadaha laga jafo
dad midho badan buu ka tegay waa in bartii laga sii wadaa oo aan la daalin arrintaanu isugu nimi waxaanu leenahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaanu ka tacseenaynaa sheekh cabdinaasir xaaji axmed oo gacanka xaqdarini dishay waxaanu leenahay naftayada iyo mandaqadda iyo dadka islaamka ah samir iyo iimaan allah ka siiyo isagana naxariistan u leeyahay ilaahay ha ugu bishaareeyo godka iyo qabriga allah u waasiciyo gaar ahaanna waxaanu leenahay ilaah waxaanu uga baryaynaa dadkii ooriyihii iyo awlaaddii iyo eheliyaduu ka tegey samir iyo iimaan inuu ka siiyo samir iyo iimaan inuu ka siiyo ummadoo dhan way dhimanaysaa annaguna naftayada waanu ku samirsannahay oo dee waa kulli nafsu daaqatul mawt ilaahay naxariistii jannaanu ilaahay u weydiinaynaa dadkii uu ka tegayna samir iyo iimaan baanu ilaahay uga baryay maanta masaajidkan iskugu nimi oo ka tacsiyeynayna sheekh cabdinaasir xaaji axmed dilkii foosha xumaa oo loo geystay una tacsiyeynayna ummaddii uu ka tegey waxaanu leenahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lilaahi maa akhada walahu maa acdaa wa kulla shayin cindahu biajalin musamma in sha allahu tacaala sheekhu wuxuu ahaa sheekh khayr badan oo wax badan ka shaqeeyey oo juhdi iyo dadaal fara badan diinta iyo dacwada geliyey miraheedina wuu soo saaray way ku filan yihiin in sha allahu tacaala intaa ducadooda iyo khayrkooda ayaa ku filan intii wixii uu ka tegey oo uu soo saarana way ku filan yihiin dadka ummadda in sha allahu tacaala waxaanu u tacsiyeynaynaa gobollada Soomaaliya gobolkii uu saldhigga u ahaa iyo ummadda uu waxbaray kuwa diinta uu baray iyo kuwa macrifada kale u lahaa oo in sha allahu tacaala ayaanu u tacsiyeynaynaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa sheekhu wuu diyaar garoobay adduunyadan wuu ka diyaar garoobay in badan buu saad urursanayay oo diyaar garoobayay oo dacwada diinta ku jiray oo juhdi iyo dadaal fara badan ku bixinayay ilaahay waxaanu ka baryaynaa dadaalkiisii uu bixiyay in uu ka dhigo in sha allahu tacaala saad uu qaato oo jannatul firdaws al-a'la in sha allahu tacaala ilaahu ku abaalmariyaa ilaahay uga baryaynaa in sha allahu tacaala waxaanu leenahay ciddii dhibkaa geysatay oo shiikha dishay ilaahay waxaan ka baryaynaa shaarca allah soo dhigo si fiican shaarca ilaahay inuu soo dhigo oo ummadda dhexdeedana ku fashaliyo aakhirana wixii ay geysteen uu ku abaalmiraan ilaahay uga baryaynaa marka in sha allahu tacaala dadkii qaraabadii iyo ehelkii uu ka tegey iyo ummaddii dacwadii iyo uu ka tegeyna waxaanu leenahay in sha allahu tacaala qof walba oo dhibkaas uu gaaray ama taabtay waxaan ilaahay uga baryaynaa cid kasta booskii shiikhaas waa khayr badnaa booskii uu ka tegey iyo khayrkii uu watay wax ka khayr badan ilaahay qof walba inuu booskiisa u dhagaano ilaahay uga baryaynaa ilaahayna ka baryaynaa ilaahay inuu naga aqbalo waxaanu tacsi tiiraanya leh oo naxdin leh uga diraynaa ummadda muslimiinta geeridii ku timi muslimiinta waxaanu anagoo maanta salaad jimca ku tukanay degmada Boocane ilaahay ha naga aqbalaanu leenahay waxaanu halkan tacsi tiiraanya leh oo naxdin leh oo kurbi aad iyo aad u tiro badan leh ilaahay baa kurbiga fayda tacsi uga diraynaa geeridii muslimiinta ku timi dal iyo dibad cabdinaasir xaaji axmed ilaahay jannada raxmaha ka waraabiye ummadda muslimiinta baan uga tacsiyeynaynaa meel ay joogaanba khaas ahaan ummaddii oo xaasaskiisa iyo caruurihiisa ardaydii macadada iyo maaragtay tacabka uu ku soo saaray iyo muslimiintii kale oo ku dhex noolaa gobolka Sool oo kale baan tacsi uga diraynaa waxaanu leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu daa'iqatul mawt waa wada la wada marayo cid waliba way dhadhaminaysaa ay la tahay annaguna insha Allah waa sugaynaa isagana waxaanu leenahay jannada raxma Allah ka waraabiyo waxaanu kaloo leenahay oo ummad meesha uu ku dhintay waa Kismaayo
si foolxun oo dab ah oo ummadda muslimiinta ahi ay ka tiiraanyootay oo qof kastoo muslina qalbigiisa ku sawiran ayaa uu u gubtay waxaanu leenahay inta halkaa joogta ilaahay horta waxaanu baryaynaa ilaahay inuu soo qabto wixii sidaa falkaa sameeyey ilaahay waxaanu ka baraynaa sida qorraxdu u caddahay xaqaa ilaahay inuu caddeeyo oo soo qabto cadowgaas oo muslimiinta lagu sii day kuwa dambana uusan gubin waa falaaliyaad foolxun meelahaasaan kaga tegayaa ilaahay jannadii raxmaha ka waraabiyo si ka diraynaa degmada Boocame ee gobolka Sool waxaanu tacsi u diraynaa shiikhii weynaada ee Soomaaliyeed shiikhii weynaa ee gobolada SSC shiikh baladkii magaalada Laascaanood shiikhii caalimka ahaa dilkii foosha xumeed ee lagu geystay magaalada Kismaayo waxaanu leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaanu leenahay ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta meel ay joogaanba waxaanu diraynaa tacsi waxaan tacsi u diraynaa qoyskiisii iyo eheladiisii waxaanu tacsi u diraynaa culimadii iyo ardaydii oo gobolada Soomaaliya oo dhan 18 gobolada Soomaaliya ku wada sugan baanu tacsi u diraynaa ka degmaahan waxaanu diraynaa tacsi waxaana tacsi ka diraynaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timi shiikheeni weynaa Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed Yuusuf waxaanu leenahay mar koowaad iyo mar saddexaadba inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun magaalada uu ku dhintay shiikhu waa magaalada Kismaayo waxa ka jira maamulkaas wuxuu leeyahay madaxweyne wuxuu leeyahay hay'adihii dawladda waxaanu maamulka ka codsanaynaa maadaama aanu nahay dadkii gobolka Sool ama ummadda Soomaaliyeed baanu ka codsanaynaa maamulka meesha ka jira sheekha dhibaato weyn oo gubniina baa loo geystay fal aad u argagax baa loo geystay maamulka waxaan ka codsanaynaa inuu baaritaan dheeraad ah arrintaa ku sameeya sheekha geeridiisana uu uusan bayalsan baanu ka codsanaynaa maamulka waxa madaxweyne ka ah Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoowe waxaan ku leenahay cod dheer sheekha arrintiisa xil gaar ah iska saar baaritaan dheer iska saar sheekha ciddii dishay waanu kaaga fadhinaa haddaan nahay dadka gobolka Sool inna ilaahi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan halkan tacsi tiiraayo leh uga diraynaa dadkii uu ka geeriyooday shiikhayagii qaaliga ahaa Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed ee ku dhintay silka naxdinta weyn nagu reebay ee markii aanu daawanay meesha uu ku dhintay aad iyo aad jiirkayagu u dhaqaaqay waxaan tacsi u diraynaa dadkii uu ka geeriyooday kuwuu waxbaray iyo kuwii ehelka u ahaa iyo gobolkii uu ka dhintay tacsi baan u diraynaa waxaan leeyahay waxaanu nahay kuwa islaam ah oo qadarta ilaahay ogol oo waxaanu garanaynaa Sheekh Cabdinaasir markuu uurka hooyadii 120 habeen ku jiray in loo qoray inuu sidaa ku dhinto waanu garanaynaa waxaanu leenahay oo alle ka baryaynaa inuu xawlkii jannada ka waraabiyo waxaan leeyahay waxaa jiray shiikhiya ka horeeyay oo sidaas oo kale u dhintay mid garowe lagu dilay iyo mid Boosaaso lagu dilay waa la soo qabtay kuwii nimanka dilay alle waxaan ka baryaynaa kuwii la soo qabtay sidii loo soo qabtay oo kale kuwii Sheekh Cabdinaasir dilkiisa ka dhameeyay inuu iyagana ilaahay noo soo qabto ilaahay sidaasaan ka baryaynaa mar labaad iyo mar saddexaad mid walba waxaan tacsi u diraynaa eheladii Sheekh Cabdinaasir uu ka geeriyooday إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحنو تعصيب هل كان ودرينا شيخ عبد الناصر جريديسي حاجي يوسف وحنو مركه هو تعصيين إن إسلام كودن وحنو تعصيين إن أهلديسي
waxaanu uga tacsiyeynaynaa dadkii uu waxbaray ee soo saaray muddada dheer ilaahayna waxaanu uga baryaynaa janna fardowsa inuu geeyo insha Allah ilaahay waaba geynayaa waxaanu baryaynaa oo ilaahay ka baryaynaa ilaahay baanu ka baryaynaa ilaahayna waa naga ajiibayaa oo waa naga aqbalayaa maanta waa jimcaha jimcihiisa in dilka foosha xun ciddii shiikha u geysatay in la hayo oo aynu lagu farxo oo islaamka oo dhan ku farxo ilaahay baanu ka baryaynaa war aamiin dah ilaahay waxaanu ka barinay jimcaha jimcihiisa falka foosha xun ciddii geysatay in gacantan lagu hayo oo la qabto ilaahay baanu ka baryaynaa ilaahayna waa naga aqbalayaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahna waanu ku kalsoonahay maxamed axmed jaamac maxamed bidhaanshe bidhaan media